wafdi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galaya shir looga hadlayo arrimaha ku saabsan biyaha wadamada Islaamka uga furmay magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga. Wariyaheena Kamaal oo shirkaasi isagu ku sugnaa ayaa warbixinta noo soo diray. shirka wasaaradaha biyaha dowladaha Islaamka ee OSIDA ayaa ka furmay magaalada Istanbul maalinimadii shalay waxaana looga hadlayay dhibaatada biyo la'aanta ay ka jirta wadamada qaar iyo waliba caafimaad darrada ay leeyihiin biyaha wasakhaysan. waxaana shir gudoominayay wasiirka kheyraadka biyaha dowladda Turkiga Dr. Professor Faysal Eroglu. ugu horeyntii waxaa khudbad ku furay shirka madaxweynaha dalkan Turkiga Mudane Rajab Tayyip Erdogan wuxuuna ka hadlay sida dowladda Turkiga ay ugu heelan tahay inay wax ka qabato biyo la'aanta ka jirta wadamada qaar ee Islaamka ah. wuxuuna carabka ku dhuftay mashaariic dhowr ah oo ay ka fuliyeen qaaradda Afrika gaar ahaan Suudaan iyo Djibouti oo iyaga maraya heer gabagaba. shirkan oo ahaa mid soconaya 3 maalmood ayay kaga hadleen dhammaan wasiirada ka kala socday dowladaha Islaamka. dhanka Soomaaliyana waxa uu matalayay wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. intaasi kadib wasiirka ayaa shir jaraa'id u qabtay saxaafadda. Bismillahir Rahmanir Rahim. shirkan markuu ugu horeysa waa shir ay ka soo qayb galeen dhammaan xubnaha oo ay sida wasiiradooda biyaha ay ka soo qayb galeen shalay ayuu furmay waxaana shirka furay madaxweynaha wadankan Erdogan ayaa furay maanta ayaa shirku ugu muhiimsanaa oo warbixino laga dhageysanayay wasiirada biyaha ururka ku jira marka shirka wuxuu ku saabsanaa in warbixin la kala qaato iyo haddii dib uu jirana sida dhibkaasi loogu gaashaman lahaa haddii wax fiican ay jiraan la dhageysto oo laga qaato wixii fiicanna. wasiirka ayaa halkaasi ka soo jeediyay khudbad ku aadan xaaladda biyo la'aaneed ee Soomaaliya iyo sida aynu ugu baahannahay helitaanka biyo nadiif ah warshado casriyeysan kuwaas oo magaalooyinka u kala qaybin kara biyaha. kadib markii ay dhamaatay khudbaddii wasiirka waxaa jawaab kooban ka bixiyay Mudane Dr. Professor Faysal oo ahaa shir gudoomiyihii kulankan wasiirada biyaha wuxuuna tilmaamay in arintani ay tahay mid aad u fudud waana la taabagelin karaa waxa kaliya oo loo baahan yahay in loo gudbiyo bangiga Islaamka. annaga khudbad ayaan ka jeedinay meesha khudbadana waxay ku saabsaneed biyo la'aanta ka jirta Soomaaliya iyo biyaha oo caafimaadkooda aad u liito halkaas dad badan oo Soomaaliyeed caafimaad darrada biyaha oo aan la daaweyn u dhimanayo ugu badan tahay caruurta iyo haweenka ay ugu badan yihiin ayaan halka ka jeedinay iyo biyo la'aanta ka jirta Soomaaliya guud ahaan runtii arrinkaasi dareen weyn ayay abuurtay waatii aad maqlayseen gudoomiyaha shirka Faysal Eroglu si degdeg ah ugu jawaabay oo uu yiri waxaas oo dhan waxba laga qaban karaa runtii successful u ahaa insha Allah. hadalkan wasiirka ayaa ku soo aadaya kadib markii ay shalay si gaar ah u kulmeen labada wasiir ee Turkiga iyo Soomaaliya sidoo kale horaantii sanadkan waxay heshiisyo iskaashiga ku kala saxiixdeen magaalada Ankara ee caasimadda dalkan Turkiga. horta shalay waxaan la kulannay wasiirka forestryga iyo biyaha Turkiga Mr. Faysal Eroglu runtii aad ayuu noo soo dhaweeyay waatii hore aan u kala saxiixnay heshiis labada dawladood oo ku saabsan iskaashi labada wasaaradood wuxuu noo ballan qaaday in dhibka jira oo biyo la'aanta Soomaaliya si looga baxo wasaaraddu la siiyo riigag ay wax ku qodo isla markaasna la tababaro shaqaalihii riigagaasi ku shaqayn lahaa sidoo kalena ay wax nagala qabtaan meelo badan oo u baahan in biyogelin lagu sameeyo sida caasimadda Muqdisho oo u baahan water supply systemkii hore uga jiray in dib loo soo celiyo marka guud ahaan aad u wanaagsanaa. dowladda Turkiga ayaa ballan qaaday inay sii doonto wasaaradda dib u dhis baaxad leh uguna deeqi doonto tababar shaqaale iyo qalab lagu dayactiri karo kaasoo wax weyn ka bedeli doona xaaladda biyo la'aaneed ee ka jirta dalkeena Soomaaliya. Kamaal Xasan Xuseen, Kalsan TV, magaalada Istanbul.